أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علينا ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آية القرآن كدب maanta taariikhdu waxa weeyaan 11 bishii afraad sanadii 2021 xilligana hadda waa bishii Shabcaan iyaduna qiimaha badan lahayd dhowr maalmood baa inooga hadhay insha Allah waxa soo socdana aan sugeynana waxa weeye bishii barakeysneed ee Ramadaan marka eebihin weyna waxaan uga baryahayaa Soomaali weyn waxaan islaam oo dhan uga baryayaa inuu eebihin weyna ka saaro dhibaatooyinka madhamaatada ay ku jiraan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan sii leeyahay eebihin weynaha ka saaro dhibaatooyinka iyo culayska madhamaatada ee gumeysiga madowga Itoobiya ku soo hayay eega ku hayo aadamiciisu yahay inuu ku sii hayo saddexdaasi waa ma kala hadhaan gaar ahaan waxaan sii salaamayaa xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ee meeshii ku nool yihiin waxaan halkan leeyahay on eebihin weyna ka baryahayaa inuu taariikhda eegay bisheeda kale uu nagu gaarsiiyo Soomaalida ogaadeen iyo xor ah ilaahay waxba kuma aha kadib codkayga maanta waxaan rabaa inaan bal xoogaa aan sharaxo waxaan loogu magac daray waxa la yiraahdo aragtidaan rabaa marka inaan isku dayo inaan soo gudbiyo waxa ay tahay macnaha aragti aragtidu waxaa loo qaybiyaa aragti dheer iyo aragti gaaban marka hore waxaan raacsanaynaa marka faa'iidooyinka aragtida dheer iyo khasaaraha aragtida gaaban iyaduna iyo tusaalooyinka gaaban on soo qaadan doono aragtida ama tusaalooyinka waxay noqon karaan dhacdooyin waxay noqon karaan waxay xiriir la yeelan karaan maadaama aan ka hadlayo shacabweynaha Soomaalida ogaadeen gumeysiga ka hoos jirta iyo xiriirka gumeysiga maadaama aan ka hadlayo dhacdooyinkaas waxay u badan doontaa labadooda ama Soomaalida ogaadeen gumeysiga ka hoos jirta iyo gumeysiga madowga Itoobiya xiriir la yeelan karta aragti marka si fiican ugu dhuux oo ugu fiirso aragti eebihin weyna wuxuu nagu manaystay walxa aad u fara badan oo jirkeenu ka kooban yahay walxaha waxaa ka mid ah oo tusaale u soo qaadanayna hadda indhahan ilaahay eebihin weynayna siiyay eebihin weyne glass buu nagu siiyay indhahaas qiimaha badan leh waxay arkaan wax muuqda aragtida marka waxa weeye waxay kala saarayaan cadiin waxay garanayaan cadiinka madowga midabada guduudka huruudda macni midabada noocaasa yay indhuhu kala saarayaan waxay kala saarayaan shakhsiga bini aadanka iyo xayawaanaadka oo kana waa ruux bay dhihi waa shakhsi bini aadan kana waa xayawaankii geedihii dhirtii wixii bay kala saarayaan wax dheer wax gaaban wax balaca badii midabadii aragtidaas marka waa aragtida caadiga ah ee qofku indhihiisa uu ku arko waxaa jirta marka aragti kale oo ah qofka bini aadanka ee bihin weyn wuxuu ku manaystay wax la yiraahdo aqli qalbigiisa oo uu dareen ku jiro aragtidaas marka ayaa waxa weeye shakhsiga bini aadanka tusaale ahaan qofka bini aadankii markuu dhinto ruux baa ka baxaysa
ruuxdaas ma aragna inag laakiin markii qof saacadda ay ka baxdo naftu ruuxu waa la boobsin waxaa la dhihi war ina dhaafiya qoloftiisa ina dhaafiya sida awgeed aragtida qofka ku jirta ee maskaxiyan iyo dareen kiisa ah yaa waxay xallinaysaa marka problemada shakhsigaas marka hore waxa weeye isaga shakhsiyan 24 saac oo ka bilaabata 6 daqiiqad minute waxa ilaa sanad soconaysa markuu shakhsigu isagoo dhibaatooyinkiisa la hadlama ee uu xalliyo ayaa waxa weeye shakhsi wuxuu noqonayaa mid naftiisa kaliya anfaca midna wuxuu noqonayaa mid qoyskiisa anfaca midna wuxuu noqonayaa nin beesha uu ka soo jeeda anfaca mid wuxuu noqonayaa mid anfaca qaranka iyo ummadda uu ka soo jeeda midna wuxuu noqonayaa mid anfaca as globaliba tusaale ahaan ninka soo saaray diyaaradda ninka soo saaray waxaa jira 4 xoog baa jira oo ah xoogaga electroniga kuwa magnetiga ee dhulka ah iyo labada xoog ee nuclearka ah ragga curiyay waxay anfaceen as a global marka aragtidaas yaa waxa weeye midna way gaaban tahay oo markay gaaban tahay waa khasaare waa waxyeel waan jili doonaa insha Allah ayaana ka hordhicin aragtida dheera waa taas aan tilmaamayo ee faa'iidooyinka u leh ee xallinaysa dhibaatooyinka ma dhamaatada marka hadda waxaan ka wadaa haddaan tusaale u soo qaato aragtida dheer waa ta inay sababta la rabay inay ku guulaysato dhibaatooyinka ma dhamaatada gumaysi madowga Itoobiya ku jira Soomaalida ogaadeen haddaan markii ku jaangooyo waxaa la rabay waxaa jiray halgan jaamuray oo soo jiray muddo 36 sano ah halgankaasna waxaa la yiraahdaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen aragtidiisu marka hadday dheer tahay waxay keeni lahayd weeyaan xalkii waara ee ummadaas halgankuna uu socon lahaa khataran wadnahana farta looguma hayo inuu kala go'o marka aragtida dheer waa sidaas weeyaan aragtida gaaban waxay lid ku tahay aragtidii dheereyd bay lid ku tahay aragtida gaabani waa kontureerida aragtida dheer maxaa marka aan tusaale usoo qaadan karaa tusaale waxaan usoo qaadan karaa waxaa la yidhi tusaalaha maanta masiibooyinka dhacahaya dhibaatooyinka ma dhamaatada ah ee ka socda geeska Afrika gaar ahaan ka socda Ethiopia siyaasaddan regional ee hadda aad moodo inuu global isku bedelay Ethiopia daandaansiga ku hayso ee khayraadkii waddanka Suudaan damaacaysa ee khayraadkii masaaridii biyahan dabiiciga ah Ilaahay abuuray ee saa u qulqulaya ee rabta inay humanitarian ahaan ay ka afjarto aragtidaas ay maanta jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen laga sugahayay in ay maanta as a globally ay gaarsiisan meel sababtoo ah ajendaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen oo wakiil ka ah Soomaalida ogaadeen gumaysiga madow Itoobiya ku hoos jirta aragtida laga rabay waxay ahayd aragti dheer sida awgeed waxaan dhihi karaa marka aragtidu markay gaabata marka khataraha ugu yar ee dhacaya markii loo bedelo as a anthropology ahaan oo ah macnaheedu xiriirka la leh deegaanka siyaasadda iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha oo aan ka hadlayo hadda labada ummadood Afarta iyo Soomaalida ku wada nool anu ma dhahayo maanta dhammaan afar ayaa waxay doonaysaa inay dhammaantood macnaheedu waxaan ka hadlayaa shacabkaas afareed laftigoodu gumaysiga madowga Itoobiya soo dilood iyo shacabka Soomaaliyeed baa maanta waxay rabaan inay islaayaan oo isku madhaan oo boqcad qalalan oo biyaba oo limbo oo nafba oo lina isku madhaan iyo isku maranayaan maanta labadooda aanu ma qabo laakiin waxaan qabaa siyaasad jaamurtay oo bislaatay oo aan dhihi karo aragtida gaaban abiyi aragtida dheeri waa taxalka keenta
nabadgelyada keenta. haddaan tusaale soo qaato tusaale haddaan soo qaato ilmo yar oo saqiir ah ayaa wuxuu la seexan waayey baahi. tusaalaan soo qaadanayna habeenkan caawaytaa ilmihii yaraa wax ololinayay gubahaya waa gaajo caano u baahda ya nin lacag badan haystay oo dollar ahaa oo $1 milyan ah qoyska u yimid ilmaha u dhashay $1 milyan oo kurjada ah baa loo keenay. kurjadahaas lacagta ka samaysan elementiga ama ka samaysan wax la yiraahdo waraaqad iyo waxyaabo laga sameeyay ama aan dhihi karo coins qadaadiic ah biro oo kala ah. ilmahaas yarka calooshu ololayso wax may u taraysaa? jawaabtu waxa weeye waa maya, waxba uma tarayso weeyaan. marka mar haddayna wax u taraynin lacagta marka $1 milyan waxba way taran weyda wey. waxaa ka qiimo badan marka hooyada ama shakhsiga bilaadanka ilmihii yaraa calooshu ololaysa seexan lahaa u keena ya hal galaas oo caana ama xad yar oo caana oo ilmaha calooshu u qaboojiso, kaasaa xalkii ah. marka waxaan ka wadaa shakhsigaa keenay caanaha ilmaha calooshiisa qaboojiyey, shakhsigaas wuxuu qaadanayaa sifaha aragti dheeriga, sababta wuxuu xalliyey dhibaato humanitarian oo markaa taagnay. laakiin shakhsiga keenay $1 milyan oo bira iyo waraaqada ah, shakhsigaasi muusan keenin xalkii. waxaan ka wadaa marka BB iyo fikradda abi anu sabab lagu abaalmariyey maba garanahaye, sababtaa beesha caalamku isaga oo u taagan oo ah wakiilkii aan qababa wakiilka siyaasadda reer galbeed iyo Yurub United Kingdom ama British inay Ethiopia iyo Axmaara tahay, ayaa waxaan dhihi karaa marka aragtidaas gaabani waa ta sababaysa marka in ay ummadii marato oo xal ku noqdo in uu tirtiro wax alla wixii ka soo jeeday TPLF oo taageedka iyo himilada uu leeyahay gumaysiga madowga Ethiopia waxa weeyaan inuu tirtiro muwaadiniintaas ka soo haray nidaamkii hore TPLF ayaa loo jeedaa oo liu booliska qolada la yiraahdo anu mar in carabka inaan ku dhufteen oo iyaga laftigoodu dhibaatooyinkii hore way galeen loo laataa. waxaan u leeyahay marka arrinta iga yaabisaa marka waxay tahay aragti gaabnida. marka yaan badinayaa tusaalooyinkooda. aragti gaabnida waxaa la dhihi karaa 500 oo dhalinyaro ah oo ciidan ayaa waxaa la qorayaa madaxa laga xiirayaa xira lagu ururinayaa 500,000 hadday aragti dheeraan lahaayeen waxay la iman lahaayeen inay wax bartaan, inay cilmi yeeshaan, inay dugsi quraan galaan, inay iskuul galaan, kadibna ay marka iyada ay dugsi sare ka baxaan, jaamacad galaan, ka bacdina ay soo saaraan aragti saliim ah oo tii aan lahaa. aragtidaas soo saartay xoogaga afarta sidii aan u xusay ee kala ahaa nuclear iyo electronic iyo magnetiga field waxyaabaha soo saaraya ama soo saarayaba diyaaradan anfacaysa ee bilaadanki qaarad uu gudbayo curinaya ayuu la iman lahaa. laakiin 500,000 intii tuuto loo geliyo arrimaha ay yaabiya aniga ayaa waxay tahay aragti gaabnidu dhibaatada ay leedahay. 500,000 oo nin baa la xareynayaa, waxaa loo dhiibayaa hub, waxaa loo dhiibayaa rasaas, waxaa la leeyahay dadka amariya kaba soo qaad ciidamada Ethiopia markii ay xasuuqahayeen Soomaalida ogaadeen ay xaq u dirka jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen waxay u taagneed dhibaatooyinka ma dhamaatada ay beesha caalamka u gudbinaysay naftooda difaacayeen. jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen xilliga dagaalameysay ma aysan weerareen Ethiopia, way isdifaacayeen naftooda difaacayeen, shacab weynahooda baraarujinayeen, beesha caalamka u sheegayeen. sida awgeed 500 qof aan ku soo noqday qodobkii 500 qof dhalinyaro askarinimada qortay, hal nin oo ku raaxaysanaya xarun
madaxtooyo aan in yar meeshan aan ka soo gudbiye kaba soo qaad hadda shalaytoo kale on daawanahay meeshaas ay afarta iyo Soomaalidu ay islaynayaan intaasoo boqol oo qof ay ku dhimanayso oo dhiig qubanayo xarunta Addis Ababa qolyo dhalinyaro ahaa oo activistayaal ahaa oo Ethiopia ka soo duubahaya xaruntooda ku tilmaamahayay madaxtooyada waad yaabaysaa sida ay u quruxsan tahay oo dhismaheeda maaragtay dhismayaal xitaa neef geel ah iyo dhismayaal maxaa la yidhaahdaa u samaysan maaragtay diindiinka oo kale oo ay imanayaan dalxiisayaasha adduunyadu daawanaysa qasrigii iyo madaxtooyadii laga xukumayay ee abi u fadhiyeen waa halkaa yahay uu saa ugu raaxaysanayo oo ay title-kee dhalinyaradu ku soo qoreen ay ahayd meeshan waxaan rabnaa inaan shacabka u soo bandhigno halkan waa xaruntii madaxtooyada Ethiopia anu maba dhaheenba haddaan macnihii ahaan lahaa iyaga title-ka xitaa waa in la yidhaahdaa waa madaxtooyada gumaysiga madow ee Ethiopia eedina waxaan kula talinayaa dhalinyarada aniga oo u soo gudbinaya title-kooda ha ku qoraan maxaa la yidhaahdaa xarunta madaxtooyada gumaysiga Ethiopia ha ku qoraan ee guunka waxaan tusaalaha usoo qaataa marka ninka meeshaas ku raaxaysanahay ya ayaa amarkooda intay qaataan ayay isxasuuqayaan isagii baa dhimanaya amar madii marka 500 oo nin ama 1 milyan oo qof oo askar la leeyahay sababta oo hal qof uu intuu amar ugu diro wax soo mariya loo leeyahay waa sida pilotka intii loo dhiibo nuclear bomb la leeyahay wax soo qarxisayna dhiban la leeyahay waa marka qaadanay ya anu waxaan dhihi lahaa marka aragti gaabnidu dhibaatooyinkaas ay leedahay sida awgeed aan dib u soo noqdo marka ya maxaa lagama maarmaana marka muxuu yahay xalku wuxuu xalku yahay in aragtida gaaban ya ee sababtay halgankii 36 sano soo jiray ee caalamiyoobay ee keedka yeeshay ya maanta waxaan dhihi karaa Soomaalida ogaadeeya ka waxbarasho ahaan ka aqoon-yahan ahaan ka culimo ahaan ka dhalinyaro ahaan ya maanta inay dawlad jirta noqon lahayd aragtidii soo gaabiyay ee dib ugu noqday fikirkii gumaysiga ee gumaysiga Ethiopia la xuquuq baan ka raadinaynaa taas waa habeenkii xalay ahaa oo tagay ya sida awgeed aragtidu waa inay dheeraataa waa inay anfacdaa xal la keentaa iyada oo maskaxda la dhalaaliyo intaa kadib waxaan halkii ka soo gudbinayaa anoo fursadan kaga faa'iideysanaya waxaan ka xumahay dhibaatooyinka iyo xasuuqa iyo dhiigga ku daatay shucuubta walaalaha ee Cafarta iyo Soomaalida gaar ahaan waxaan dhihi karaa waan ka xumahay aragtida gaaban gumaysiga madowga Ethiopia gaar ahaan hogaamiyaha Ethiopia EBB xalkiisu noqday in uu xasuuqo oo madaafiic la dhaco oo ummadda mariyo kadibna falsafadii iyo fikradii TPLF ee Zeenaawi uu halkaa ku tirtiro ku riyoonaya taa xalku ma ahee xalku waxay tahay xalka waara ee Soomaalida ogaadeenya iyo geeska Afrika waa xalka waara ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya taasna waxaan ku baraarujinayaa oo fariinta u diraya gumaysiga madowga Ethiopia oo hogaamiyaha u yahay Abiy maxaa soo haray jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ya aragtideeda ha dheerayso si ay xalka waarta u gaadho ya aragtideeda ha dheerayso sida ay xalka waara u gaadho waxaan leeyahay gumaysiga madowga Ethiopia ha dhaco EBB ha dhacdo fikradda iyo buugga madowga ee gumaysiga Ethiopia ma shaqeynayo eedina waxaan idinkiga tagayaa halgamaagaas
wuu xisuusiyaa wuu qiiradiisa iyo wadankiisa balin yar iyadana la sii raac dhag وارنتي waxaan halkan aan rabaa inaan idinku ogeysiiyo waxaa jira barnaamij taxana ahaa oo ahayd maxaa Soomaalida ogaadeen deeqa waa runtii Soomaalida ogaadeen waxaa deeqa xurriyad himilada fog ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenyana waa xurriyad sida awgeed waxaan maraynaa qodobkii 7aad oo ahaa tayaxumada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen ama shacabweynaha Soomaalida ogaadeen ayaan ka xusna in yar insha Allah taxanaheennina iyo casharkaasna wuu inoo soconayaa gumaysi madoow Itoobiya mar labaad baan ku soo noqonayaa ha dhaco gumaysi madoow Itoobiya ha dhaco EPP ma soconayso fikradeeda Soomaalida ogaadeen ha xorowdo ee behen weyne waxaan uga baryaynaa inuu xurriyadeedii taam ahaa siiyo taasaa deeqda Soomaalida ogaadeen iyo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen soo noqdo wanaagsan waani wax Axmed Sucaad ugaas Maxamed wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh